warar isa soo taraya ayaa waxay sheegayaan in xabsiga Itobiya laga soo daayay sarkaal sare oo ka tirsanaa jabhadda ONLF kaasi oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse qalbi dhagax sanadkii horena laga dhoofiyay magaalada Muqdisho. Cabdikariim waxaa la soo daayay saaka labadii saac ee subaxnimo ama 8 aroornimo. Marka yaa lagu sii daayay oo gacanta loo geliyay. hadda dadkii sidii la joogaa cidna gacanta uguma jiro anaga hadda meel joogaa meesha aad joogtaanna waa halkay waa magaalada Ardisabaan joognaa waa gartay marka ma dawladda idin yeedhay oo idin tiri Cabdikariim ma sii deynaa kaalaya mise ballan hore jirtay in maanta la sii deynayo maya waxa weey dawladda federaalka ayaa gacan ka geysatay oo sideedii iyada sii deysay sida geedba hadda anaga ehelkiisii iyo dadkii uu ka dhashay oo hadda kula joogaa waa gartay qoyskiisii iyo carruurtiisii miyay joogaan maya xaaskii baa magaalada joogta laakiin carruurtii xagga iyo Kenya ku baqan yihiin marka ma cafis baa lagu sii daayay ma shuruudaa lagu sii daayay bal wax yar sharax qaabka sii deyntiisa waxaa weeye Cabdikariim waa la sii daayay si yaraa sharciga ah waafaqsan buuna gacan ugu jiray dawladdan hadda cusub waxaa weeye weli way cusub tahay wax badanna way qabatay wax badanna way u dhiban yihiin markaan xoogaa u noqonay in una si sharci waafaqsanayn uu gacanta ugu jiro ayaanu wargelinay dawladda amarkiisa bixisay ma sii daayo yaa oga baa lagu soo daayay caafimaadkiisu waa sidee caafimaadkiisa iyo muuqaalkiisuba aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulilah waa gartay wax dhibaato miyuu qabaa ama dhaawac ah ama dhib kale ah maya wax dhib iyo dhaawac ah midna ma qabo qorshihiisu muxuu yahay tallaabada xigta qorshihiisa wuu joogayaa waddankiisii buu joogaa waxaa weeye waddankiisii buu joogaa marka waxaa weeye inuu saacadaha soo socdo mas-uuliyiin la kulmo sabtarana waan rajeynaynaa